baarlamaanka dowladda Puntland iyagoo nad xukuumadda iyo golaha baarlamaanka Puntland ba ka codsaday inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka sicir bararka sababay oo kuwan qaar ka tirsan dadweynaha ku dhaqan magaalada Garowe oo ka hadlaya dareenkooda dalku soo yahay waa ogtihiin waxaanu ka cabanayna waa ogtihiin doolda xagga Soomaaliga la dilay sixir bararka lacagta Soomaaliga la dilay iyo sixir bararka ka cabanayna ama xilka dhiga ama dalka wuxuu qabta ama xilka dhiga ama dalka wuxuu nahay baan aaminsanay laakiin ma ahin anagu ma ahin waxaanu nahay oo la gubtay oo la dooxday oo la qashay oo la diirtay baanu nahay waxaanu nahay nalama oga oo waxaanu nahay lama oga oo dawladdu nagama warqabto oo doolarku wuxuu marayaa 5 milyan iyo 800 oo shirkadii waxa ku tiraahdeen $1 bay tutu ka yar lama diri karo mudaharaadna ma daynayna ilaa wax nala qabto haddaanu dhimanayno wiilkii uu sanaga haray haddii kale 24 saac gudahood waxaan nala ka qabto annaga dawladda annaga nagu dhisata annagayna wax nagu taa annagayna dad nagu taa annagayna qof nagu taa haddii aysan annaga naarag caruurii iskoolka waa laga bixi waa cashuurkeena gurigayga albaabada waa lagala baxay banaanbaxayaasha oo ku sugan howlka baarlamaanka golaha wakiilada Puntland ayaa waxaa halkaasi kula hadlay xildhibaanada baarlamaanka Puntland iyagoona ka codsaday dadweynuhu inay isdejiyaan oo ay wax ka qaban doonaan xaaladda sicir bararka iyagoona sheegin 24 saac ee soo socda ay dawladdu wax ka qaban doonto sicir bararka ay dadweynuhu ka cabanayaan والذي الله ياسر حلبانك يقول في الشيخيبة walaalayaal waxa weeye shacab dulqaata xukuumadda waxa ka soo saarnaa baarlamaanka oo socda warna maystiran sidii xildhibaanka horeba idin sheegay idinkuna wadada baneeya guryaha dib ugu noqda 24 saac laga war dhowra si fiican bay u hadleen arrintaad ka cabanaysaana waa dhageysanay idinkaanu idinka mid nahay doolarka waxaan ku celinaynaa haddii ilaahay oo aan u yeedhana hadda degdeg uga howlgelinaa hay-adaha dawladda ee qaabilsan dhaqaalaha noo qaabilsan qiimihiisii uu ka kacay baynu dib ugu celinaynaa haddii ilaahay sug waayahay waxa weeye waa ka howlgelinaa degdeg baan wax uga qabananaa إن شاء الله أفرأتك ساعة صوص عدنا ورد كفر أحلام مدمغل الدونتان والمهدسنتين عندي قادم وإذا طلابة شرعية لك قاضية ما مغشان طلابة شرعية لك قاضية شرع سلديني كرام مجرو مشاهر كاشقاله لغسين يا حياله الدولة أكو قادر يا مركا بديني كرتا كسو هون كابل تي في dadweynaha ku nool magaalada Garowe maanta waxay sameynayeen cabashooyin ku banaanbaxayeen gaar ahaan waxayna ka horsameynayeen howlka baarlamaanka bal ininka ka baarlamaan ahaan maxay cabashadaas wax ka qaban doontaa bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya hoon keebul iyo saxaafada kalaba dadweynuhu waa soo banaanbaxeen cabasho ay muujinayeen oo ay ka hadlayaan arrinta sicir bararka iyo sarifka kor u kacay waana wax iska dhacda adduunka oo dhan baa inflation ka dhacaa adduunku hadda waa kala xidhmay intii maaragtay xanuunkan rabaaniga covid-19 ku adduunyada maaragtay saameeyay waa wax iska dhacay oo adduunka oo dhan baa dhaqaalihii hoos u dhacay inflation waa wax dhaca dadweynuhuna xaq bay u leeyihiin cabashadooda dadkii oo qaybna dhulka taalamaata taalo jiifta noqotay qaybna ay mukayfiyada qowsiga dhex jidho waxaanu aad uga cabanana sicirka yarka uu marayo inta taariikhda bilowdanka meesha ugu sareysa uu marayaa wuxuu gaaray maanta in markii santiyaadkii la joojiyo 50 kor u dhaafo arrintaas waxa uu wacan waa dawladdii oo maamulkii kala baxday ee sicirkii maamuli weyday waxaan aad ula yaabanahay waaga hore dadku siyaasiyiintu damiir bay lahaan jireen oo shacabku damiir bay lahaan jireen oo ismadu damiir bay lahaan jireen dadkii waxa ka dhintay damiirkii arrintii laga daqnan mayo maatadii loo daqnan mayo ummadii hore loo daqnan mayo ummadii oo dhan waxa weeye maanta waxa dhacday tuugsadayaashii tii laba kula siiyo saddex kula siiyo inay biyo ku gadan waayaan waxaas kale xuquuq ka timaada baarin aad iyo aad looga naxo weeye in dadka qaybtiisa ay qorraxda soo istaagaan oo laamiga fariistaaneen qabna ay isaga jirto mukayf iyo muxuu ahaay to isaga dhex fadhiyaan waxaas waa arrin aad iyo aad looga naxo waxa weeye marka xildhibaanada iyo baarlamaan wax la iyo madaxweynuhu ku-xigeenku waa inay go'aan degdeg qaataan oo waxa weeye shacabka soo loo matalaan dadkan shacabka lagu soo doortay shacabka meesha loo joogaa 66 xildhibaan shacabka meesha joogaan
shacabka haddaysan wax u qabanayn waxa way meesha kula soo baneeyeen waxa way halka maanta wixii ka dhacay khasaare ka dhacay iyaga geystay isku soo wada duuba arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo waayihii u dambeysay deegaanada Puntland ay ka jireen sicir barar xooggan taasoo sababtay in dad fara badan ay wax gadan kari waayaan shareeco yaasin shareeco telefishinka caalamiga Home Cable Garowe